kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaashayga qiimaha badan. Qiso aad u naxdin leh oo ka dhacday magaaladaasi Muqdisho ayaa waxa aan ugu talagalay inaan kusoo gudbino halkan ama muuqaalkan. Fadlan haddaba inta aynaan u gudagelin qisadan, waxaan si xushmad leh kaaga codsan inaad videoga like saartid, sidoo kale channelkan aad subscribe saartid. Qisadan waxa ay ku dhacday gabadh Soomaaliyeed oo kamid ah gabdhaha Soomaaliyeed. Gabadhan ayaa waxa ay qoraal soo dhigtay barteeda Facebook iyada oo sheegaysa inay ku dhacday qiso aad u xanuun badan. Gabadhan ayaa waxay u soo baxday galbaha kamida ama galbaheeda kamida bareefad si ay u tagto. Kadib bareefadkii iyada oo kusii socota ayaa waxaa dhexda ka helay nin oo soo qaaday. Ninkaas oo ahaa askari ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Askarigii ayaa gaariga ku soo qaaday, waxa uu keenay bareefadkii, isla markiina waxa uu ku yiri marka labaad aan ku soo qaado ee isoo wac haddii aad doonto. Gabadhii yareed ayaa ka degtay, isla markiina wax lambar iyadoo aan siin ninkii ay ka degtay, waana gashay bareefadkii. Markii labaad maqribkii abbaara markii salaada la eedaamay ayaa waxaa haddana dib u soo noqday ninkii askariga ahaa, isagoo doonayay inuu qaado gabadha mar labaad, iyada oo si ula kac ah aan u dareensanayn inuu taagay ninkii askariga ahaa. Ayuu daaqada uga gacan haadiyay, isla markaana wuu yeedhay, isla markaana ay soo kortay gaadhigii mar labaad. Markii uu soo waday gaadhigii ee uu keenay meeshii ay markii hore ka raacday ninkan, ayaa waxa ay gabadhii miir beeshay. Kadibna gaadhiga ayuu sii waday, waxa uu si toos ah u galay xero ciidan ama xero askar iyo dad kale ay ku nool yihiin oo ku taala magaalada Muqdisho. Xeradii marka uu galay askarigan oo gaadhigii wata, isla gabadhii oo miir beeshayna ay saaran tahay, ayaa waxa ay isla hadleen nin cadaan ah oo ku jiray xeradaasi. Ninkii cadaanka ahaa ayuu English kula hadlay, isla markaana iyadoo ay ka waramayso luqadanna waxa ay tiri aniga waan fahansanaa waxa ay. Isla markii ayaa waxa uu ku wareejiyay ninkii cadaanka ahaa gabadha isagoo oo English kula hadlayay, balse iyadu ay fahmaysay oo say qoraalka ku sheegtay ay tiri anoo ka il horeeya isaga Englishta uu kula hadlay oo weliba uu jajabsanaya askarigaasi. Ayaa waxa aan gartay markiiba waxa ay ku wada hadlayaan labada nin. Then waxa uu igu wareejiyay ninkii cadaanka isagoo la muusan hadal, balse anigu ninkii askariga ayaan dib ugu noqday. Waxa aanan ku yiri maxaa dhacay, si ula kac ah ayaa waxa uu igu yiri waxaan soo galnay xero ciidan, waana layna xirayaa, marka soo deg qaybta dumarka gal, aniguna qaybta raggan galaya. sasar nagu xidhay, gaadhigina xaggaas yaala, marka ka soo deg. Si qasab ah ayaa layga soo dejiyay gaadhigii, anoo diidan ayay tiri gabadhaasi si codka ku sheegtay. Kadibna waxa lay geeyay qol xidhan oo xagga ku yaala, oon light lahayn, oon iftiin lahayn, oon meel laga neefsado lahayn, oon nafis ahayn. Qolkii ayaa waxa igu soo galay nin aanan garanayn, ninkii Afrikaan ah oo madow oo timaadag ayaa igu soo galay ayay tiri. Ninkii ilaamuu hadal, balse waxa uu gacanta ku sitay ayaa uu iga seeriyay intaasanka iyo afka, waase ay qoraalka ku sheegaysa gabadhaasi. Gabadhii ayaa waxa ay tiri marka uu igu shubay wixii uu gacanta ku sitay ayaa iigu dambeysay marka hawadaan ku jiray oo waan miirbeelay, waanan dawakhay. Gabadhii ayaa tiri waxa aan ku war helay aniga oo soo kacay oo soo markaa miir doorsoomay oo soo kacay, ayaa waxa aan iska arkay dhiig dhammaan jirkeyga iyo miriyaha anoo miryala ayaan soo kacay. Marka qolkiina waa laygu xidhay, saasuu igu xidhnaa. Markaan soo kacay, markasta oo ninkaas sii yimaado, markasta waa yimin jiray gabadhaasi tiri. Codka ama qoraalka ay ku sheegaysa gabadhaasi soo dhigtay barteeda Facebook waxay tiri markasta oo aan jooga qolkaasi uu igu soo galaa ninkaasi, wax allaaliyo wuxuu doonana uu iga sameeyaa ninkaasi. Muddo 2 sano ah ayaan xagga ku jiray ayay tiri. Waxa aan ku dhalay ilmo yar
iyadoo laygu haystay kufsiga xoogga ah. subxaanallah kufsiga xoogga iyadoo laygu haystay ayay tiri gabadhaasi. kadibna waxa loo bedelay askarigii xumaa ee kufsan jiray maalin kasta xero ku taala Addis Ababa. markii dambe aan kasoo baxsaday meeshii anoo fursad ku helay ayaa waxaa aan soo gaadhay reerahaygii oo 2 sano ka hor tacsi ii dhigay markii ay i waayeen. kadib reerkaygii ayaa aad u naxay, ina baadhay, waxa ayna iga heleen cudurka AIDS ee uu keeno fayraska HIV. waxa aanan qaataa kiniina kiimika ah oo la yidhaahdo RF. kiniinka RF ee loo cuno cudurkaasi ayaan qaataa bay tiri gabadhaasi. reerkaygu isla markiiba iguma hawshan, balse waa ay takooreen. waxa aan qol jiingad ah ku haystaa cunugteedii yarayd, imikana aan xaamilo ahay oo aan sido. waxa aan ka codsanayaa bay tiri dowladda jirta maanta in lai raadiyo xuquuqdeydii haweenimo. ninkii waxa igu sameeyey 2 sano iga haystayna meeshana ee bareefadkayga iyo mustaqbalkayga warwarayay u bedelay nolol madow in lai raadiyo. balse waxaa jira alxamdulillah gabadhaasi ma qabaan carruurtaydu xanuunka ee aniga ayuunbuu ii gaar yahay xanuunkaasi. subxaanallah gabadhaasi ayaa qoraalkeeda kusii dartay xuquuqda in lai raadiyo, una dirtay dhammaan ummadda Soomaaliyeed cidda xil u haysa iyo cid kaleba. qoraalka markii aan akhrinayay run ahaantii aad baan u argagaxay, waana naxay. waxaan maskaxda gelayn in askari xun oo ajaanib ah, isagu waa ajaanib, wax allaaliyo wuxuu haysta garamayna sooma, in askari xun oo ajaanib ah uu kufsado gabadh Soomaaliyeed oo sharaf leh, inuu kufsado 2 sanana meel ku haysto, loona ogolaado oo laga iibiyo. ninkii markii hore iibsanayay cadaanka ahna uu lacag $100 ah ugu geeyay askarigii Soomaaliga ahaa ee gabadhan soo qaaday. gabadhan way markii hore ku heshiiyeen ninka cadaanka ah inuu kufsado ama uu gabadh Soomaaliyeed u baahan yahay. askarigiina uu yiri gabadhii Soomaaliyeed ee u baahnayd waan keenay, waana tan gabadhii Soomaaliyeed ee u baahnayd ee aniga waxa aad igu wareejinayso igu wareeji. daawadeyaal muuqaalkan naxdinta leh aad ayaan u daawaday oo aan u dabagalay. haddii aad tahay qof muslim ah oo muuqaalkan akhriyaya oo weliba Soomaali ah oo codkayga soo fahmay, waxaan kaga soo bixin doontaa dareenkaaga qaybta hoose ee commentiska loo yaqaano, ama commentiga ayaad kaga soo dhiiban doontaa. inta muuqaal kale ku kulmi doono waan iga baahinta wararka. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.